Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamu calaykum walaalayaal waxaan sii wadnaa casharadeenii ku saabsanaa PHP-ga maanta waxaan qeexaynaa waxa la dhaho if else if statement. Waxaan hore usoo aragnay if else laakiin kan wuxuu yahay if else if statement ayaan baranaynaa maanta. Marka PHP if else if statement waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo xaalad ka badan laba xaaladood uu programkeenu doonayo inuu qiimeeyo. haddii midood noqoto mid jirta ama run ah kadib programkeenu wuxuu fulinayaa tallaabada ama koodhka la xiriira xaaladaas runta ah. Marka muhiimaddu waxay tahay mar walba waxaan if statement loo isticmaalaa in programka uu ku qiimeeyo xaalado kala duwan 1 2 3 4 5 camal. Marka wuxuu doonayaa maaragtay inuu qiimeeyo xaaladda koowaad xaaladda labaad haddii xaaladda koowaad sax tahay xaaladda koowaad ayuu execution ku sameynaya haddii xaaladda labaad tahay xaaladda labaad ayuu sameynaya. Marka muhiim wey inaan fahmno marka aan u guda galno casharkii si aan usii fahmno marka sida halkan ku cad waxaa halkan ku cad program yar oon qoray oo ku saabsan laba tiro hore iyo tiro dambe. Tirada hore nambarkeedu waa 4 tirada dambe waa 20. tirada hore macnaha programkeenu wuxuu qiimeynayaa marka tirada hore ay ka weyn haddii tirada hore ay ka weyn tahay tirada dambe kadib programkeenu wuxuu leeyahay tirada hore waxay ka weyn tahay tirada dambe. Marka else if haddii la isticmaalo waxay sameynaysaa tiro hore markay la mid tahay tirada dambe. Marka haddii tiradaasi labada tiro isla eg yihiin marka programkeenu wuxuu soo qiimeynayaa wuxuu soo bixinayaa labada tiro way isla eg yihiin. xaaladda ugu dambeysa waa else tirada hore waxay ka yar tahay tirada dambe kadib tirada programkeenu wuxuu screenka ku qorayaa tirada hore waxay ka yar tahay tirada dambe. Marka muhiim wey inaan fahmno macnaha labada tiro marka xaaladda meeshan aan qiimeynayna ama rabno inaan fahmno waxay tahay waxaan isticmaalka sida if else if statement. Marka programkan asagoo qoran ayaan sameyn doonaa insha allah si aad mar usii fahamtaan. Marka waa muhiim inaad fahamtaan walaalo hore u socono sida diagramkan ku cad. Marka saad ujeedaanba meesha programkeenu ka bilaabmaya oo ah halkan ayuu programkan ka bilaabmaya haddii xaaladani run tahay xaaladda ay run tahay then ay run noqoto then programkeenu wuxuu gudbayaa xaaladaas taas ayuu fulinayaa oo ah waxa uu screen ku qorayo. marka xaaladdan hadda inta ku qoran waxaa ku aadan if statementigan. xaaladdan kale oo meeshan ku qoran aad ujeedaan tan labaad ah else if statement haddii tan ay run noqon weydo oo been noqoto xaalkan ayaan usoo gudbaynaa. xaalkan markaan usoo gudubno kadib iyadana waxaan qiimeynaynaa in run tahay hadday run tahay dhinacaanan aadaynaa koodka la xiriirana waa kaas halkaa ku qoran. xaaladda saddexaad waa else statement waa xaaladdan qiimeynaynaa haddii xaaladdii ay run noqoto dhinacaanan aadaynaa koodka la xiriiro la isticmaalayo waa kana. mar walba waxaa muhiim ah inaan fahamno haddii haddaad ujeedaan xaaladda koowaad aan qiimeynayna waa taas koodka qoran waa ka yellow ku qoran. marka muhiimaddu waxay inaad fahamtaan falaartan hadda kastiirada dhaqaaqday waxa weeyaan kasoo qaad in xaaladda runta ay xaaladda koowaad ay ahayd xaalad run ah then programkeenu wuxuu fulinayaa shuruudda oo ahayd halkan eco tirada tirada hore waxay ka weyn tahay tirada dambe. marka muhiim ah inaan fahamno marka mar labaad haddaan ku qoro haddaad fiirisaan programkeenu wuxuu qiimeynayaa else if oo xaaladda labaad hadday run noqoto programkeenu wuxuu qiimeynayaa midda kale oo else if statement tirada hore waxay la mid tahay tirada dambe wuxuuna meesha ku qorayaa labada tiro waa isla egyihiin. xaaladda saddexaad programkeenu wuxuu qiimeynayaa else statement markay noqoto sidaad meesha uga jeedaan wuxuu noqonayaa else statement wuxuu noqonayaa xaaladda saddexaad ayuu qiimeynayaa haddii ilaahay yiraahdo. marka waa muhiim inaan fahmno marka saad ujeedaanba marka hore waxaan qiimeynaa xaaladda koowaad hadday run noqoto runtuu aadayaa then koodka ugu horeeya ayuu qiimeynayaa. xaaladda labaad wuxuu qiimeynayaa else if statement tirada hore markay la mid tahay tirada dambe kadib screenka waxaan ku qoraynaa labada tiro waa isku mid. xaaladda saddexaad waxaan qiimeynaynaa inay tirada hore ka yar tahay tirada dambe haddii ay sax tahay oo run noqotona then programkeenu wuxuu tirada hore wuxuu ku qorayaa screenka tirada hore way ka yar tahay tirada dambe. marka waa muhiim inaan fahmno diagramkan waa muhiim waxaan ugu talagalay inaad si fiican u fahamtaan. insha allah waxaan qoraynaa program ku saabsan arrintan marka wallahi qiimeyna insha allah. waxaan
waxaan create garay file cusub, filekaas cusub oo la dhaho else if demo, if underscore else if demo.php oon ku kaydiyay meesheeda. Marka waxaan dhigleegay labada thread. Marka programkayga midda ugu horeysa uu sameynaya waxay tahay inuu qiimeeyo xaaladda ugu horeysa oo ah in tirada hore iyo tirada dambe uu isbarbardhigo, aan u sheegno programka waxa uu screenka ku qorayo. Marka bal aynu qorno tirada hore programku sheegayna aan leenahay haddii tirada hore ay ka weyn tahay tirada dambe, then marka programka waxaad ku qortaa meesha, waxaad screenka noogu qortaa tirada hore ay ka weyn tahay tirada sidoo qoran yahay aan qorno marka okay. waxaan qiimeynaynaa marka else if statement. waxaan leenahay else if statement markaan qiimeynayna iyadana waa inaan halkan ku qornaa, aan dhahnaa if haddii tirada hore la mid tahay tirada dambe, then hoos waxaan ku qoraynaa marka screenka waxaan ku qoraynaa tirada hore ay la eg tahay tirada dambe. sida variable ahaa ayaan u qeexaynaa insha allah. haddii kale dib male waan ka goynaynaa, caadi aan qoraynaa, dib male tirada dambe kana tirada hore aan u dayno. okay. marka muhiim waxaa inaan meeshan semicolon ku qornaa, halkan waa inaan semicolon ku qornaa iyadana, because instructionka markuu dhamaado marka waxaan u hartay else kan waxaan ku qoraynaa echo. waxaan soo qiimeynay in tirada hore ka weyn tahay tirada dambe. hadda waxaan qiimeynaynaa programka midda kaliya u harta waxay tahay inuu qiimeeyo, wax kale ma aha, in tirada hore la eg tahay tirada. haddii tirada hore way ka yar tahay tirada dambe, waa muhiim inaan fahmno. so programku laba tiraan declare garaynay, labada tiro markaan declare garaynay wuxuu qiimeynayaa xaaladda ugu horeysa. programkeena uu qiimeynaya waxay tahay in tirada hore ay ka weyn tahay tirada dambe. haddii arrintaas run noqon weydo, then programku wuxuu u gudbayaa else if statement oo ah haddii tirada hore ay la eg tahay tirada dambe, wuxuu qiimeynayaa xaaladda. waxaan qiimeynaynaa in labada tiro isla eg yihiin. xaaladda saddexaad oo optionalka oo else-ka ah wax kale maaha, waa xaalad qiimeynaysa in maaragtay tirada hore ay ka yar tahay tirada hore way ka yar tahay tirada dambe, because haddii tirada hore ay ka weyn tahay tirada dambe, xaaladda qiimeynaysa waa tan ugu horeysa markii hore aan create garayno oo ah kan. halkanna waxaan ku qiimeynaynaa in tirada hore tirada dambe ka weyn tahay. hadday run noqoto kaasaa meesha ku qoraynaa, screen ku qoraynaa. waxaan kan ku xig waxaan qiimeynaynaa in labada tiro isla eg yihiin. haddii isla eg yihiin waxaan leenahay tirada hore way la eg tahay tirada dambe. haddii kale xaaladda saddexaad aan qiimeynayna waxay tahay in tirada hore ay ka yar tahay tirada dambe. marka bal aan run garayno oo aan save garayo, control s aan garaacaya. marka bal hadii hadda bahalkeena aan refresh ku sameyno waa inuu programka noo soo baxa. marka wuxuu leeyahay syntax error ayaa jiro line 9 ah. marka bal aynu yarayno. syntax error ka jira muxuu yahay aan fiirino. syntax error ka jira muxuu yahay.
9 tiro hore ay badan tahay tiro hore sida aan u declare garaynay iyo sida ay u qoran tahay isma leh marka taas way tu diidan yahay marka bal hadda tiro hore iyo tiro dambe labadan kulli waxa meesha ku qoran halkan chronomid marka aynu control s niraahno bal aan programka haddana ku celino fiirino sida halkan ka muuqata markaan isbarbar dhigno programkeena halkan xaaladda labada number horta midka hore tirada hore ayaa yar oo tirada dambe ayaa weyn marka programka waxa hadda halkan una tusaya wax kale maaha wuxuuna tusayaa in tirada hore ay ka yar tahay tirada dambe because xaaladdu hadda qiimeynayo xaaladan else statementiga xaaladdu qiimeynayo hal xaaladan because labada xaaladood oo hore waa been because macnaha true ma aha because tirada hore kama weyna tirada dambe tirada horena ma leeka tirada dambe marka xigmadda meesha ku jirta waxay tahay programkii wuxuu soo qabsaday logicii ama conditionkii saxa ahaa oo ahaa in tirada hore ka yartahay tirada dambe bal maxaa dhici doona haddaan labada tiro isdaba marino soo qaad haddaan tiradan 20 ka dhigo tiradan 4 ka dhigo aan dhaho control s aanan gareeyo sida halkan ka muuqata programku waa inuuna tusaa xaaladan because tirada hore way ka weyntahay tirada yar marka xaaladan waa inuu noogu qoraa meesha duu programkeenu sax yahay logica conditionka aan rabno inaan saxno sida halkan uga jeedaan halka waxaa ku qoran tirada hore way ka weyntahay tirada dambe marka halkan xoogaa isku dhigay marka aan saxno aan dhaho refresh sida halkan ka cad tirada hore way ka weyntahay tirada dambe sida halkan ka muuqata oo halkan aad uga jeedaan tiradan hore way ka weyntahay tiradan dambe because labadii number ayaan isdaba marinay maxaa dhici doona marka haddaan labada tiro isla ekaysiino programku wuxuu qiimeyn doonaa xaalada else if statement oo ah misalan kasoo qaad haddaan labadan 20 ka dhigo oo 20 aan ka dhigno oon programkii aan dhaho maaragtay refresh ku sameeyo waa inuuna tusaa xaaladan because labada tiro way isleegyihiin markan waa in tirada hore way la-egtahay tirada dambena tusaa bal aan refresh ku sameeyo sida halkan uga jeedaan waxaa noo soo baxay conditionkan saddexaad oo ah in tirada hore ay la-eg tahay tirada dambe because labada tiro way isleegyihiin because labada number waa 20 marka muhiim weyn inaad fahamtaan insha allah khayr waxaan rajeynayaa in ilaahay maaragtay aad example fiican aha marka wixii su'aalaha aad qabtaan kulli waa iisoo sheegi doontaa insha allah khayr waxaan isku arki doonaa casharka dambe mahadsanidin